waxaan wada ogsoonahay ummad walba inay ka soo unkanto hal qof ilaa ay ka gaadhayso markaa koox kadibna markaa bulsho ay samaysmayso sadaradeed laba mustalax ama laba eray bixin baa jirta oo markaa qof kaliya iyo dhowr qof oo isku tagay oo markaa koox noqday marka hadaba isbedelka la joogo qof kaliya isbedel shakhsiyadeed ama nafeed uu samayn karaya isla markaana ummad dhanna waa u bedeli karaya sidaas la midana koox isku tagtayna waxay samayn karayaan isbedel gudeed oo iyaga kaliya khaas u ah iyo isbedel iyaga ka baxsan oo markaa bulshada oo dhan ay doonayaan inay isbedel ku sameeyaan sadaradeed maanta muuqaalkan waxaan soo wadaagi doonaa talo maxay noqon karaysaa sirta ka dambisa inay guul ka gaaraan يعني قف كليه إنه يسوي يسبدله إذا مركانه أمد كذا وبدله أما إنه كوح يجوا يسبدشوا أما عد كلا مركا أي بدشوا صدق قضاء ورنتي أدو مهمة بس لو دايق دونا أو بيس أو نقول كريه إن يسبدل عد والبقى إلى تماطه أساسنا هو قفك هدو دون يسبدل إنه يسميه أما كوح حتى دون يسبدل إنه يسميه مد جدال يمكن مد أي برشة لو داري ما هالنقضانه إن صدق ذا قضاء لقيه لو ولا جمارمان إن سلو دايق صدق ذا قضاء صار وهذا دمانتين ضاوش وناسين السلام عليكم صاحبيال وصل وهذا بركوتين عبد الله المنصوري waxaan dirajinay dhamaantii beenad wacnaani wanaagga ku wada suwantiin hadda ku cusubta kanaalka ku soo dhawo oo ka mid noqo asxaabtiisa hadda hore nugula jirteen soo dhawo mar kale sida hore kula soo wadaaray waxaanu maanta muuqaalkan ku falanqayn doonaa saddex xikmadood oo runtii aad u muhiim ah kuwaas oo markaa ka dambeeya ama yani asaas u ah in isbedel uu la imaado qof kaliya isla markaana uu cid kale isbedel ku samayn karayo ama koox inay isbedel gudeed la timaado ama cid kale markaa isbedel ay ku samayso saddex qodob oo runtii aad u muhiim ah weeyaan si intaana u gelin saddexdaa qodob waxaan doonayaa in isla wadaagno qodob runtii aad u muhiim ah talo maxay noqon karaysaa xiriirka ka dhaxeeya farxadda iyo guusha ama waxa loo yaqaan an-najaax iyo as-sacaada talo maxay noqon karaysaa bal iyaa ka fikir waqti baan ku siinayaa waxaan oran karnaa farqiga weyn ee u dhaxeeya waxa weeyaan guushu waa shay maadi ah oo la taaban karayo ama la arki karayo qofku inuu meel ka gaaro tusaale ahaan haddaan darajo sare gaaro imtixaanka aan u sarreeyo ardayda haddaan yani dhaqaale fiican aan sameeyo haddaan yani tartan la galay aan ku guuleysto waa shay la maadi ah oo la garanayo oo markaa la taaban karayo oo markaa la ogaan karayo weeyaan laakiin sacaadadu waxa weeyaan waa wax daakhili ah weeyaan oo qofka gudihiisa ka timaada qalbigiisa uu ka dareemo qofku isagoo guulba gaadhin oo markaa sacaado dareemi karaya isagoo markaa guuleystana sacaado ma gaari karayo oo markaa sacaado kuma xinaanayso qofku inuu guuleystay iyo inaanu guuleysan kuma xinaan karayso sidaa daraadeed sacaaduna waa shay gaar ah oo qofka aan la dareemi karin isla markaana la arki karin gudahana ka timaada halka markaa guushu ay tahay shay maadi ah oo markaa la taaban karayo lana dareemi karayo haddaba marka halkaa la joogo dadku waxay u qaybsamaan afar kooxood kooxda koowaad waxa weeyaan waa koox iyadu markaa aan guuleysan isla markaana farxad aan haysan talo kuwaas waa maxay kuwaas waa dadka inta ugu badan ilaahay subxaanahu wa ta'aala quraankiisa wuxuu yiri walakinna akthara an-naasi la yashkuruun yani dadkaasi sacaadana ma haystaan oo adduunyada yani sacaado kuma haystaan guul nololeed oo ay gaareenna ma jirto kuwaasna waxay u badan yihiin dadka aan xirfad nololeed haysan يعني خطوات فكرية aan lahayn isla markaana bulshadan iyo mujtamacan iyo deegaankan doonay inay wax ka dhex sameeyaan oo markaa hadaf adduunyo aan lahayn isla markaana hadaf aakhira aan lahayn dhammaan waxyaabihii sacaadada keenaya ama farxadda keenayna asaasiyaadkeedu dhan aan gacanta ku hayn saa daraadeed qofkaasi sacaado iyo farxad iyo reerayn ma haysto soo kalena guul ma haysto waana kuwa ugu badan ee markaa bulshada ku jira kooxda labaad waxa weeyaan waa koox farxad iyo sacaado iyo reerayn haysta laakiin aan guul haysan ama aan guuleysan kuwaasi waxay u badan yihiin kuwa aan xirfad lahayn kuwa aan nolosha khuddo iyo qorshe aan ka lahayn kuwa aan doonayn bulshada inay soo dhex galaan oo markaa isbedel ay ka dhaliyaan waa kuwa aan taariikh aan samayn karin isla markaana ilaaway nasiibkii markaa adduunyada ay ku lahaayeen saa daraadeed dadkaasi waxay u badan yihiin dadka mutadayiniinta ah lisuu ilxad yani inagoo ka xun yani haddana dadku waxay u badan yihiin dadka mutadayiniinta oo waxay odhanayaan dadkaasi anagu diinta iyo ilaahay caabudka iyo nolosha aakhira iyo intaas nagu fooganaana noloshii adduunyo oo dhanna way ka taganaa waxaana ilaahay subxaanahu wa ta'aala ina faray inayna nolosha adduunyo aynaan ka tagin walaa tansa nasiibaka min addunya yani adduunyadeena inaynaan ka tagin oo adduunyadeena aynu shaqaysano oo markaa nolol fiican aynu ku noolaano aakhiradeena markaa aynu markaa u shaqaysano oo labadii dhinacba markaa aynu isku garboodno saa daraadeed waxaa muhiim ah inaan sacaado kaliya lagu koonaane noloshii adduunyana laga qayb qaato oo markaa islaax fardi ah iyo islaax markaa jamaaciya la sameeyo labadaba oo markaa adduunyadiina aan la ilaabin oo qofku nasiibkiisa adduunyada uu ku lahaana uu ka shaqaysta markaa kooxda saddexaad waxa weeyaan waa koox guuleysatay laakiin wax farxada aan haysan waa kooxda dadka markaa aqniyada ah dadka kufaarta oo dhan baa u badan tusaale fiicanna waxaynu aha qaaruun adduunka wixii maal yaalo dhan buu haystay laakiin wax farxada uu haystay ma jirto imise qof baa marka maalqabeena ah oo dunida markaa maalqabeena waaweyn ah oo lacag fara badan haysta dunida yani waxyaabaha ugu yani faakhiraadka oo dhan haysta guryaha ugu qaalisan gawaarida ugu qaalisan wax kastoo qaali oo dhan haysta wixii allaali wixii adduunka ay uga baahnaayeen oo dhan haysta laakiin wax sacaado aan ku nooleen isla markaana markii u dambeysay iyagu istilo oo markaa sabab isku noqday inay markaa nafta isdhaafiyaan dadka noocaasi waxa ay haystaan guul laakiin wax farxad ma haystaan saa daraadeed iskuma xidhna guusha iyo markaa farxadda uu qofku helayo iskuma xidhna
kuwaasna waxa ka dhiman markaa jaanibkii farxadda ah oo markaa ay u baahan tahay inuu qofku ilaahay subxaanahu wa tacaala markaa ku xidhnaado. ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu qur-aankiisa ku yidhi alaa bidikri illaahi tadma'inu lquluub, yacni dikriga ilaahay iyo xuska ilaahay ayaan ku dareemanaa markaa xasilooni qalbi aan ku dareemanaa oo markaa nafteenu ku dareysa oo xasilooni aan ku dareemanaa. sidaa daraadeed qofka muslimka waxyaabuhu kaga duwan yahay dadka kale waxaa ka mid ah yacni inuu haysto markaa sacaadadaasna waxay ka imanaysaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu caabudaya iyo diintan uu ku dhex jiro ayay markaa ka imanaysaa. saa daraadeed iskuma xidhna yacni qofku inuu sacaado haystay inuu markaa guushii adduunya markaa u haysto. waa muhiim qofku hadduu adduunyadiisa uu haysto oo markaa adduunyadiisa uu ka faa'iidaystay inuu markaa noloshii kaana yani sacaadadii kaana oo ilaahay subxaanahu wa tacaala xaggiisa ku xidhan oo diin ku xidhan oo markaa yani ku xidhan inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala xidhiidh fiican qofku la yeesho waa inaanu taana iloobin oo markaa taana uu ku dadaalaa. kooxda afraad ee soo qaadana waxa weeyaan waa koox labadiiba jamcisay oo markaa noloshii adduunyo guusheediina markaa helay isla markaana sacaadadii iyo farxaddiina markaa helay. kuwani waa kuwa markaa isku daray in markaa nolosha adduunya nasiibkooda aana ilaabin, ka shaqaystay khudwaad fikriya iyo mid camaliya la imaaday, bulshadoodii wax taray isla markaana iyaguna ka faa'iidaystay. dhinaca kale markaa waa kuwa markaa xidhiidh fiican la ilaahay subxaanahu wa tacaala yani xidhiidhkaana ku foogan inay markaa sii xoojiyaan oo sii wanaajiyaan, mar walbana dalbaya iyo shaqo walbood qabanayaan oo adduunyana ku dalbaya inay markaa raali ahaansha ilaahay subxaanahu wa tacaala ku gaaraan. saa daraadeed baa culimmadu waxay lahaayeen man lam yadkhul jannata dunya lam yadkhul jannata al-aakhira, yani qofka jannada adduunyo aan gelin jannada aakhira ba galaba. yani iyagoo taxfiis bay ka wadaan, maaha shardi laakiin taxfiis bay ka wadaan dhiirigelin qofku noloshiisa adduunyana waa inuu ka faa'iidaystaa, noloshiisa aakhirana markaa uu ka faa'iidaystaa. saa daraadeed qofka aynu rabnaa waxa weeyaan qof ilaahay subxaanahu wa tacaala ku xidhan isla markaana soo kale nolosha adduunyana markaa doonaya inuu ka faa'iidaysto, isbedel inuu dhaliyo mid fardiya iyo markaa mid jamaaci iyo markaa bulshada uu doonaya inuu wax isbedel kaga sameeyo. saa daraadeed guusha iyo farxadda markaa la isu keeno dadku waxay u qaybsamaan afartaa qaybood. haddaba aynu isla wadaagna saddexda qodob ee ay ku guulaystaan mashaariicda ay qofka iyo markaa majmuucada ama kooxdu ay labaduba ay samaynayso si markaa isbedel nololeed ama guul nololeed markaa ay u gaarhaan. sababta saddexdaa qodob ay muhiim ugu noqdeen yani isbedelka uu samaynayo qofku iyo isbedelka ay kooxdu samaynaysa waxa weeyaan adduunkan ay ku noolnahay laba mustawa ayaa jira. mustawa loo yaqaano mustawa alfardi oo qofku markaa isaga naftiisa uu doonayo markaa inuu isbedel ka dhaliyo, isagoo naftiisa markaa uu isbedel ku sameeyo, iyo markaa inuu mujtamac dhan yani isagu keligii markaa wax ku taro oo markaa isbedel ku sameeyo, iyo koox inay doonayso iyaguna isbedel inay gaar u samayso isla markaana bulshada ay wax tarto. labada noocaasi haddaba mid walba waxay u baahan yihiin markaa isbedel gudeed marka hore inay soo sameeyaan, iyagu ay soo dhisaan, iyagu ay soo kobciyaan, kadibna markaa bulshadii ay markaa u yimaadaan. marka inta lagu jiro isbedelka iyo dhismaha inta lagu jiro saddexda qodob baa markaa muhiim ah inay la imaadaan. qodobka koowaad ee soo qaadana waxa weeyaan horumarin nafeed oo joogto ah. markan qodobkaas sida aan leenahay waxa weeyaan yani marka koox la joogo iyo marka qof ahaan la joogo labaduba way u baahan yihiin in markaa inay dhisaan oo markaa iyagu gudahooda ay iskobciyaan. qofka marka la joogo qofku wuxuu u baahan yahay inuu khibraad ka duwan yani kuwii hore uu kasbado oo markaa khibraadka uu raadiyo dadka ka waaweyn uu la kulmo, yani khibraadka dunida markaa yaalana uu markaa soo urursado oo markaa uu kasbado. waxaa loo baahan yahay inuu aqoontiisa kobciyo, waxaa loo baahan yahay inuu xirfadiisa kobciyo, waxaa loo baahan yahay inuu majaalaadka nolosha ee ku jira kala duwan markaa uu kobciyo, uu markaa uu aad u sii ballaariyo si uu markaa u sameeyo isbedel nafeed iyo isbedel markaa uu mujtamaca doonayo inuu ku sameeyo labadaba si ay ugu hirgalaan. sidaas si lamid ah kooxda doonaysa markaa inay isbedel nololeed ay samayso iyagana waxaa laga rabaa inay iyaguna inta isku imaadaan ay markaa ka fikiraan qadaayaadka bulshada haysta maxay ka mid ah, yani qadaayaadka ugu muhiimsan ama dhibaatooyinka ugu muhiimsan ee bulshada haysta maxay yihiin, sidee looga hortagi karayaa, sidee isbedel loogu samayn karayaa, yani isbedelada nolosha ku dhacaya ama yani kooxda ama dadka ay ku dhex nool yihiin ku dhacayana maxay yihiin, taariikhda ummadda iyo sooyaalkoodaas waa inay wax ka warhayaan oo markaa ay ogsoo yihiin. saa daraadeed waxaa laga maarmaan ah in horumarin nafeed oo joogto ah lala imaado, taasoo lagu urursanayo aqoonta iyo khibradaha iyo markaa iyo xogta kala duwan ee bulshada lagu dhex nool yahay si markaa isbedel fiican oo nololeed loo sameeyo. waayo dadku waxay u qaybsamaan laba qaybood marka la joogo dhibaatooyinka bulshooyinka haysta. qolo waxay ka warantaa xalalka oo kaliya iyagoo aan sheegin sababtii keentay markaa dhibaatooyinka iyo markaa dhibaatooyinka laftirkooda markaa in la cayimo oo la sheego, in markaa xalal guud la sheego iyo saas ay noo wacan. dadka qaarna kaliya waxay sheegaan dhibaatooyinkii la soo maro oo dhammaantood dhan ka sheekeynayaan iyo waxyaabihii keenuu bay ka sheekeynayaan iyo sida ku yimaadeen, laakiin wax xal ah oo ay keenayaan haba yaraatee ma jirto. sidaa daraadeed waxaan u baahannahay qolo labadiiba kulmisa oo marka koobaad sheegtay dhibaatooyinka jira isla markaana sheegtay siday ku yimaadeen iyo sababta keentay, ugu dambayna markaa xalkii la timaada. dadka noocaas waxay noqon karayaan kaliya dadka markaa xogta iyo aqoonta iyo khibradda markaa haya. dhibaatooyinka ugu badan ee markaa bulshooyinka qabsadana waxaa ka mid ah ama qofka naf ahaantiisaba qabsadana waxaa ka mid ah yani waxa loo yaqaana markaa inuu isdhigto oo uu halkaa ku istaago. taasi oo keenaysa markaa in qofku markaa uu ku timaado yani inuu damiirkiisa iyo shakhsiyadiisa markaa ay dhimato, taasoo markaa ugu dambayna keenaysa in ibdaaci iyo horumarintii uu nololeeda uu samayn lahaa mid shakhsiya iyo mid bulshada wax ugu tarayaba ay meesha ka baxdo oo waxa loo yaqaano markaa alquswa ay qofku ay ku dhacdo. markaa si taa looga hortago waxaa muhiim ah in markaa horumarin joogto ah oo nafeed markaa mar walba la sameeyo, haddii bulsho la yahay iyo markaa haddii xisbi ama yani koox doonaysa in ummadda wax ka bedeshan ay tahayna labaduba markaa waa in taala la imaada oo aad loo joogteeya.
qodobka labaad ee soo qaadana waxa weeyaan waa cusboonaysiin. maxaa la cusboonaysiinaya yani shakhsiyadda qofka ayaa la cusboonaysiinaya ama shakhsiyadda kooxda hawsha qabanaysa ee doonaysa marka isbeddelka inay dhaliso ayaa la cusboonaysiinaya. waxaa jirta dhibaatooyin bulshooyinka haysata taasoo loo yaqaano in la iska joogo oo wax isbeddela marka aanu dhicin. tusaale waxaa la doonayaa in yani bulsho la bedelo oo marka isbeddel lagu sameeyo. qofka marka leader u ah kooxdaas, qofkaasi hawshii u wadi kari waaya, si fiicanna hawshii waa u qaban kari waaya, yani bulshadiina wax badan waa ka dhaadhicin kari waaya, isbeddelna wuu samayn kari waaya, kooxdiina si fiican uma dhaqaaji karayo. laakiin ma doonayo inuu isbeddel sameeyo, yani inuu isbeddel nafeed ama isbeddel shakhsi ah inuu sameeyo isagu meesha ka taro cid kala timaado lama rabo, isagaa kaliya joogaya meesha. saa daradeed taasi waa keentay in marka dadkii waaweynaa dad waaweyn noqdaan oo goobihii marka bulshada laga bedelayay looga fikirayay isbeddel laga dhalinayay ay fadhiyaan, isbeddelna aanay doonayn, meeshana aanay ka kacayn. dhalinyartiina aanay haweysanayn inay halkaa tagaan oo marka isbeddel intay sameeyaan oo ka kacaan dhalinyarnimada iyo marka inay wuxun aqbalaan oo wuxun dhageystaan, isla markaana ay isku rogaan inay dadka taliye ee amarka sameynaya ay noqdaan. yani in marka ay meesha ka baxday oo marka laba qaybood ama laba dabaqadood kala duwan marka la noqday. saa daradeed isbeddel haddii la doonayo in la sameeyo, haddaad shakhsi ahaan aad doonayso in isbeddel aad bulshada aad samayso oo goobtaa ku wacnaan weydo, waa inaad cid kale aad u beddeshaa oo halkii markaa timaada. haddii markaa koox la yahay oo la doonayo isbeddel in la sameeyana, qaabka loo sameynayo haddii wax laga yani fulin kari waayo ama la samayn kari waayo, afraadda iyo ashkhaasan ku dhex jirta waa in markaa isbeddel lagu sameeyo oo markaa la beddelaa oo cid kale markaa lagu soo beddelaa. saa daradeed isbeddelka waxaa muhiim ah in markaa isbeddel uu dhaco. isbeddelka laftarkiisa waxaa muhiim ah in isbeddel gudeed oo markaa qofka iyo markaa kooxda laftarkoodaba inuu dhaco si markaa loo helo natiijadii la doonayay. qodobka saddexaad soo qaadanayno ee isaguna asaaska u ah yani isbeddelka uu qofku doonayo inuu sameeyo ama bulshada ku sameeyo ama isagu ha isku sameeyo iyo kooxda hadday doonayso isbeddel inay gudeed ay samayso iyo haddii ay doonayso bulshada inay ku samayso, waxa weeyaan waa dib u eegista waxa loo yaqaano. dib u eegistu waa shay aad u muhiim ama almuraajaca daqiiqa waxa loo yaqaano. muraajacada ama in wax dib loo eego oo waxyaabaha runtii ugu muhiimsan ee markaa isbeddelku uu ku dhismi karayo. waxaa dib loo eegayaa taariikhda ummadaasi ay lahayd ama taariikhda waxaan aad qabanaysaba ay lahayd. waxaa dib loo eegayaa dhibaatooyinkii la soo maray. waxaa dib loo eegayaa maxaa khibraad laga hayaa waxaan markaa yani la sameynaya ama hawsha la gelaya maxaa khibraad laga hayaa. wax kastoo markaa hawshaa ku saabsan oo hore u dhacay oo dhan ayaa la doonaya in la derso oo la ururiyo oo markaa xogtoodii la hayo si markaa wixii iman doona iyo markaa sida wax loo gelaya iyo sida hawsha loo bilaabayaba loo odaraso oo markaa loo jideeyo, isla markaana balaankii iyo qorshaheedii loola imaado. saa daradeed waxaa jiray maqaal caan ah oo qoray imaam al-Ghazali 80 meelahaas oo uu bixiyay markaa muraajaca la rujuuc, yani dib u eegis laakiin ma aha in markaa dib loo noqdo oo markaa dib markaa loo noqdo. dhibtaasi waa keentay in kooxo badan oo doonaya bulshada inay isbeddel ka dhaliyaan inay samayn kari waayaan oo markaa ay ku fashilmaan. sababtu waxa weeyaan waxa aanay warba u hayn, isla markaana aanay ka warhayn bulshadani taariikhda ay soo martay maxay tahay, bulshadani maxay ku horumari kartaa, maxay bulshada lagu bedeli karayaa, maxay bulshadan jeceshahay, maxay si diidaa, yani dhaqanka bulshada ay leedahay maxay tahay. waxaasoo dhan in la darsa ayaa ka horeysa inta aan bulshadan la bedelin, isla markaana yani in la bedel aan lagu fikirin. sidaa daradeed waxaan odhan karnaa qofka guuleystay waxa weeyaan waa qof aan joojin inuu naftiisa cusboonaysiiyo ilaa intuu ka geeriyoonayo. waa qof wax akhriyaya, aqoon kasbanaya si aanu markaa fikir ahaan aan u istaagin. waa qof khibrad iyo aqoon kasbanaya dadka ka waaweyn ee ka caqliga badan, isla markaana ka maskaxda badan, ka khibraadka badan, ka aqoonta badan la kulmaya, la darsaya, isla markaana la fadhiisanaya si markaa uga kasbado markaa khibraad iyo markaa aqoon badan uga kasbado. waa qof mar walba ku foodan inuu markaa horumarin nafeed uu sameeyo si markaa markuu horumarin nafeed u sameeyo naftiisuna ay isku bedesho, bulshadana wixii uu markaa u tari karayana uu markaa uu taro. sidaas la mid ah kooxda guuleystay waxa weeyaan waa kooxda mar walba aan ka daalin inay naftooda markaa horumarin joogto ah ku sameeyaan, sidoo kale ay ka fikiraan inay darsaan, isla markaana ay helaan khibraad iyo markaa aqoomo kala duwan inay helaan. sidoo kale inay darsaan yani ummadan ay doonayaan isbeddelka inay ku sameeyaan ama inay wax ka bedelaan ama wax ku taraanba sooyaalkeeda iyo aqoonteeda iyo taariikhdeeda iyo markaa wax kastoo ummadaasi lahayd inay markaa ogaadaan oo markaa xogtooda ay soo urursadaan. sidoo kale waa inay markaa haykalkooda idaariyeed ka fikiraan oo mar walba cid ku munaasib ah oo maskaxdeeda iyo aqoonteeda leh ay markaa geliyaan. waa inay noqotaa koox yani la socota waaqica, isla markaana isla badbedelaysa sida markaa isbedeladu u socdaan. yani haddii maanta wadada ay ku socdaan waddo ka duwan la aado, waa in markaa ay la aadi karayaan oo markaa isbedel ku dhici karayaan qaabkay u hadlayeen, qaabka markaa ay bulshada ula dhaqmayeen, qaabka markaa tacaamulka connectionka ay u sameynayeen, wax walba markaa inuu isla bedelo. marka khaasatan waxay ku socotaa dadka markaa ama kooxaha doonaya bulshada markaa inay horumariyaan. sababta aan u soo qaatay mawduucan waxa weeyaan oo runtii mawduuc aad u ballaaran ah, isla markaana aad in loo dhex gala oo qodob walba aad loo dulstaaga ah waxa weeyaan يعني waxa laga yaabaa qof ahaan iyo markaa koox ahaanba inaan ku fikirno bulshadeena inaynu maal gashano, isla markaana aynu wax ka bedelno wixii aynu tari karnaa markaa aynu tarno. waxa la yidhahdaa aljamiic yufakir fi tagyiir alcaalam walakin ma axad yufakir fi tagyiir nafsi, ama cala alaqaliya ayaa laga wadaa. yani dadka oo dhan waxay ku fikiraan inay caalamkooda wax ka bedelaan, laakiin way yar tahay dadka ku fikira inay nafahooda wax ka bedelaan. saa daraadeed saddexdan qodob waxay asaas u yihiin ama saddexdaba aad dareemaysaa inay innaga nagu soo noqonayso.
يعني isbedelka aynu sameeyno iyo hawsha aynu qabanayno iyo shaqooyinka aynu qabanayno iyo isbedelada aynu doonayno in cid kale aynu ku sameeyno iyo bulshadeena waxaan doonayno ku tarnaba waxay inaga imanaysaa yani inagu sidee u noolahay inagu sidee aynu shaqaynaa inagu sidee u fikirnaa waxyaabahaas oo dhan bay ku noqonaysaa saddex saddexdan qodob waxay dhisayaan yani mar adiga shakhsiyadaada la dhisaya mar qorshaha iyo wadada aad raacaysa la dhisaya waa in dib u eegis iyo markaa khibrad aad soo qaata tawada baysan waxa weeyaan in isbedel xubneed aad samaysaan oo markaa teamkii aad wada shaqeynaysan hadii markaa ay tamar dareeya in markaa cid kale aad kaysan karaysan oo meeshii la bedeli karayo yani ururkii iyo markaa xisbigii iyo kooxdii ay soconayso oo markaa isbedel iyo generation to generation ay noqon karayso laakiin cid kaliya iyo fikir kaliya iyo qolo kaliya aanay ku xidhnaan laakiin markaa isbedel uu markaa ku iman karayo saddexdaas waxay dhisayaan yani gudaha yani ummadda iyo gudaha qofka iyo gudaha markaa kooxdaas ay dhisayaan si markaa isbedel hor leh loo sameeyo saadareed waxaan rajaynayaa in isbedel yani shakhsiyadeed aynu la iman doono isla markaana aynu ka fikiri doono sidee markaa aan isugu xiri karnaa mashaariicda nololeed aynu leenahay iyo markaa waxaan doonno bulshadeena inaynu tarno waxaan rajaynayaa saddexdaa qodob iyo markaa qodobadii ka horreeyba inaynu runtii aad aynu uga faa'iidaysanay inta aan ku kulmano kulankan xiga waxaan kaga tiriyaa nabadgelyo salaamullah